taliyihii ciidanka Blaiska ee maamul goboleedka Puntland General Cabdicasiis Saciid Maxamuud ayaa maanta iscasilay. taliyaha oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garowe ayaa waxa uu ka warramay sababta uu isku casilay. wariyaha BBC-da Axmed Kismaayo ayaa wareystay General Cabdicasiis Saciid Maxamuud waxaana marka hore uu uga warramay sababta uu isku casilay. waxa igu kalifay in aan ka tanasulo xilkii taliyanimo oo aan u hayay ummadda Puntland iyo ciidanka booliskaba. waxaa dhammaan dadweynuhu og yihiin ciidanka booliska oo howlaha amni ka sugaya wadanka gudihiisa in ay 9 bilood wax mushahaar qaadan, ciidankuna ay xaasas iyo nolol intaba u baahan yihiin. mushahaar la'aanta ku dhacday ciidanka boolisku waa mid ku dhacday mas'uuliyad darro oo ciidanka iyo dadka kaleba mushaharooyinkii loo siin lahaa loogu tagrifalay si aan sharciga waafaqsanayn. sidaa darteed ciidanku dee had iyo jeer anay waxay weydiinayaan muddo ayaa waxaan ku waday basanbaasin iyo dalkeena u shaqeeya iyo dadkeena u shaqeeya, waana isoo kartay. waxaa ii muuqatay nin weyn oo wax garanaya oo xilkasa nooca maanta lagu jiro inuusan wax xila ku hayn karin, mana garowsani lacag la'aani inay jirto, waayo dakhliga soo gala wadanka ciidanka booliska soo saara. subax walbana aniga xafiiskayga lagu keena dakhliga soo gala, ma sii garawsan karo in aan xilkaasi hayo walaal saasaan uga tanasulay. Cabdicasiis maadaama hadda sidaad sheegtay waqti dheer aad soo dul qaadanaysay, ma laga yaabaa in hadda arrintan ay kugu kaliftay khilaaf ama xurguf idan dhex martay adiga iyo mas-uuliyiinta kale ee ka sarreysay ee Puntland? waxa weeye ummadoo dhan waa ogtahay, saraakiisha ciidankuna waa ogtahay, aniga iyo mas-uuliyiinta wax khilaaf oo dhex maray ma jirto. aad baan isugu fiicannahay, laakiin aniga waxa kalifay in aan shaqada ka tanasulo waa mushahaar la'aanta ciidanka ku dhacday aan mas-uulka u ahay. ciidii xilka sidaa ku wadi karta haddaba ha loo soo magacaabo, anigu booska waa u baneeyay. waxaa suuragal ah in dadka qaarkood ay yiraahdaan mushaharka ciidanka booliska uu ka soo baxay dhinaca dawladda sare iyo hay'adaha ay khusayso sida wasaaradda maaliyadda oo kale. lacagahaas waxa ku takrifalay aad sheegayso saraakiisha ugu sarreysa booliska, adiga ruuxa waad ka mid tahay. walaal waxa ilaahay xamdigiisa maalin dhaweyto wasiirka maaliyadda inuu ka sheegay ciidanka boolisku mushaharkiisa inuusan qaadan. adeega aan ku shaqeynayay baan xataa amnahay dadka shaqada ka qaadan jirnay ba xataa shaqadii nagu leh qof deyn qaadan lahaa ma jiro. mideeda kale dad masaakiin oo dhiban oo 40 saac waardiye u taagan waxooda ninkii cuna ilaahay baa kala xisaabtamaya. anigu ciidanka booliska iyo dhammaan dadweynaha reer Puntland waxaan u cadeynayaa wax kaga soo leexday mas'uuliyiinta booliska inay jirin. khamiistii afraad oo anigu aan ka hadlay shirkii golaha xukuumadda oo madaxweyne ku-xigeenku uu jeer gareynayay waa ka cadeeyay inuu boolisku mushahaar qaadan, waxay haystaan ay jirin, ayna dhiban yihiin. annaga ka boolis ahaan hadday noqoto saraakiisha ciidanka dhammaan waa isku mid. waxaanu qaadanay 9 bilood ma jirto. sidaa darteed anigu wax shaqo iyo mas'uuliyad saan ku qaadi karaa ma jirto, wax kaloo ceeb oo aan dhexgeliyaana ma jirto. Cabdicasiis hadda in muddo ah madaxweynaha wadanka waa ka maqnaa, haddana wuxuu joogaa isbuuc wax ka yar. adigana intii hadda madaxweynuhu yimid waxaad joogtay Garowe, isaguna wuxuu kasoo degay magaalada Boosaaso. arrintan marka soo kuma fiicnayn in madaxweynaha aad soo fariisataan, arrintan aad ka wada hadashaan, wixii markaa la qaban karo aad ka wada qabataan? madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan muddo aan ka wada hadlaynay. hadduu wadanka ka maqan yahayna dee telefoonno lagu wada xiriiraa jira. arrintaa wax garowshiyaa waan ku waayey, go-aanka inaan qaatana garowshiya la'aanta keentay. sidaa darteed waxay ku tashan lahaayeen ciidanka boolisku iyaga u taala. taas markaas oo looma qaadan karo in hadda aad ciidankii kicinayso oo aad dawladda iyo ciidanka iska horkeenayso? haddii aan kicinayo muddada 9 bilood kuma wadan inaan mataqaanaa ciidanka madaxa kaga fadhiyo oo aan iraahdo sidaas maahana shaqada hala wada dalkiina iyo dadkiina. anigu cidna kicinayo haddii ciidanku sidaa ku shaqeynaya isaga u taala, laakiin anigu bari baan ka ahay banaankaasaan istaagay. Cabdicasiis waxa dad badan ay ka hadlaan in waqti adag lagu jiro oo sicir bar caalamka oo dhan iyo gaar ahaan Soomaaliya waliba Puntland si xoog u saameeyay uu jiro, in colaado ay jireen wadanka muddo badan soo food saaray, in hadda wasaaradda cusub loo dhisay xagga nabadgelyada. dawladuna aad hadda u hadlayso in bal wixii hore inta meel iska dhigo dib hadda wixii loo aabulo, iyadoo marka duruufaha iyo xaaladda noocaas lagu jiro rajo badan laga qabo in hadda amaankii dib loo soo celiyo. iscasilaadaada marka aad hadda ku soo beegtay soo ma muuqanayso in wixii hadda la isku amaamuday aad si kala daadinayso? walaal anigu horta wax amaamud ah oo aan kala daadinaya ma jirto. waxaa markaanti ka ah ummadda Puntland oo dhan sidii aan u shaqayn jiray iyo nabadgelyada sidii aan ugu dadaali jiray. waxaad ogtahay aniga in dhawaan la qarxiyay nabadgelyada awgeed. waxa weeye wasaaradda amniga oo sheegaysa waxaan qabaa wasaaradda
dhibta keentay inay tahay sababtoo ah ninka loo magacaabay Cabdullaahi Saciid ninna shaqadiisa uma ogola waxyaabaha aan isku cashiray bay ka mid tahay hadduu Cabdullaahi Saciid wax wanaagsan sameynaya maanta wasiir amni isaga ah laakiin anigu waxaan aaminsanahay dhib kale wadanka ka jirta inay jirin Cabdullaahi Saciid iyo adiga marka maxaad isku qabateen inta aad wada shaqeynayeen waxaanu isku qabanay waxay ahayd dhawaan magaalada Boosaaso in xabada laga riday waa ogeyd dad shacab meel iska maraya in la xabadeeyo waa ogeyd dad madaxweynuhu caafiyay buu qabsaday oo yiri lama cafin karo war wadanka sida laguma dhaqay sida ka hay markaan irina waa isku afgaran weynay hadda xoogaa halka waxa moodaa in isfahaam waa imaan waayay Cabdi Casiis hadii aynu dhabta u soo dadigno soo marka hadalkaaga kama muuqato in iscasilaada hore ka dambayso wada shaqeyn la'aan dhex martay adiga iyo wasiirkaaga ka sarreeyay ee amaanka anigu amniga Puntland wax aan ka jeclahay inuu hagaagsanaado ma jirto waan u saciyay hadda aan leeyahay waa iscasilayna waxaan diyaar u ahay amniga wixii aan ka qaban karo inaan ka qabto nin kasta qaabka u shaqeeyana ummaddu iyada ka marqaanti furaysa wada shaqeyn la'aantu hadii aniga iga timid hadii meel kale ka timid cidaan isqabanay ma jirto dadkuna ra'yiyada waa ku kala duwanaan karaan isqabad aan isqabanay ma jire ra'yigaan ku kala duwanahay waa inta weey taliyihii Blaiska ciidanka Puntland ee General Saciid waa Cabdicasiis Saciid Muuse Cabdicasiis Saciid Maxamuud oo Kismaayo ayaa waxa kale uu soo sheegay in war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cadda Muuse lagu sheegay in taliyahaasi Blaiska xilkii uu hayay laga qaaday 2 maalmood ka hor taasina loo bandhigay golaha wasiirada ee Puntland warkan ka soo baxay xafiiska maamul goboleedka Puntland ayaa waxa uu taliyuhu ku eedeynaya in dambiye kala duwan uu ka galay ciidanka Blaiska iyo dalkaba intii uu xilkaasi hayay sida ay hadalka u dhigeen waxa sidoo kale lagu eedeeyay in muddadii uu xilka hayay gobolkaasi uu ku soo kordhay amaan darro taasi oo lagu eedeynayay in taliyuhu gacan saar ula lahaa qolyaha dhibaatooyinka ka waday gobolkaasi wareegto saaka ka soo baxday xafiiska madaxweyne goboleedka Puntland waxaa taliye cusub oo ciidanka Puntland Blaiska loogu magacaabay General Gani Maxamed Xaaji Cabdi oo horey u ahaan jiray madaxii akademiyada booliiska ee Carmo